السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن سلامة أمد الصومالية مالك استود أدونك كتشوكتين وسلامنتهين ولاشين مرين إذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka hadlo maxaan ku dheelaa odayaashii meesha iskugu tagay oo ahay maxaan ku dheelaa sheeg maamul goboleedyada wax ay soo saareen haba yaraatee oo go'aan ma jirto nacnac ee meesha la soo awal ba anaga waxba kama fileen aniga when day حتى ما إيميشن قرينين كم سو قرينين سبورة هذا ما عمل قبل هذا مش أسكو تجي because I know them وحيينا نوجه وحي كسعدان نوجه ماشي وسعدان نوجه دت كيينا نوجه إنك صدق عيسو بأي كجران وحي ماشي لسه استعجن أولين محن كل لا يشجنا ووحى وحبيهين ما عمل قبلات قان صو سارة الدولة الصومالية أمراي waxay sheegayaan oo dhahayaan in doorashada halka what the fuck doorashada maxaa idinka galay ma dawlad baa noo tihiin maamul goboleedaatiin waxa aan rabno in nagala kiin hor wareejiyo waa idinka waxa aan rabno in nagala kiin hor wareejiyo oon dawladeena u garab taaganahay waa idinka iyo kuwa idin la midka oo dhigmiiratayaasha هذا اللي ذا مركي ما أنت ماشي لقى قطبيناي متك بنت لانجا what he say وحداي هدي دور شدي هل يمر لجارواي هل يقف محام كدي لاي عالمك وحن قعد سنة إنه نقول قيميان جايز هذا القف مركو هذا لاي مراه كلا بحق إنه تاسو صوص عتني وعن أجاي أنا وفهمتنا هم لينا دور شدنا شقة كلها هنينا maxaan ku dhila goore dhacay shaqo kuleynina kordhisna waa la kordhina maahan inta la doona la kordhina midaan la hadla dawladda Soomaaliya la hadla wada cabsida ka cabsanaysiin maxay tahay xaqa u leedihiin hadaa naga hoos bixinaysiin kuwan sanada sheegay ka badan ku darsatiin qalalaasa dhacay wada qalalaasada dhacaysa maxay tahay Sheekh Shariifa ku darsaday oo waxa ku darsaday maxaan ku dhilay Xasan Sheekha ku darsaday oo waxa naloo qabanaya ay jirinin maxaana la qabtay waxna la qabtay ma jirto hadii aad naga hoos bixinaysiin intaas waxa idin dhinac taagnayn oo shacabad haysatiin oo dawladay baawarku waa shacabka ma aha afartan nin ama shantan nin oo tuugada iskugu tagtay maxaan ku dhilay meesha ya iyo afartan kale oo ka qaylinaysa gobol Muqdisho ma aha baawarku waa shacabka Soomaaliyeed baawarkiisina aad haysatiin dawladeed laba mid soo gala marka ina baawarkaas lumisiin oo shacabka aad haysatiin ah oo aad anaga noo maqashiin tuugo 30 sano aan u soo xirxireen oo 30 sano dhiigeena soo dhuuqay oo 30 sano ilmoodu nagu soo korsaday oo 30 sano guriga naga soo dhistay oo kuwii kalena maxaan ku dhilay dhargeen hadana kuwan kale boos ku soo baneeyeen inaad naga hoos qaadiin oo maxaan ku dhilay aan doorashada qof iyo cod aan gaarno iyo inaad ayaga intaad noo maqashiin aad nagu hoos celisiin han nagu hoos celinina intaas waxaan u qaylinaynay oo intaas dadka wax u faraynay oo intaas isu baraarujinaynay oo intaas idin garab taagnayn inaad naga saartaan nimankan noo tashtay gacantooda inaad ummadda Soomaaliyeed ka saartaan ayaa la idinka rajaynaya haddaad tiin farmaajiye qeyre welina waa idinka rajaynaynaa go'aano intaan كاد أذك أو كعل علوسات قادتين أسد كقوليشتين يهافت قان كان إنتهى قادتين إنها عد قف يعدنا جارسيسين بري وح إيمان دونا الله أعلم وح إذا كدم بيد دونا الله أعلم وح سواء إيمان دونا الله أعلم خايبك إلهي باوك أنت عاد كرسي كفديسين حرايا ومد الصومالية أنت عاد كرسي كفديسين أنت يدون تبعاته نجا حرايا كوان نجا حرايا توجدا naga xoreeyo dad qalashada naga xoreeyo maxaan ku dhilay kuwa dibadaha joogay kuwa dalka joogay kuwa tuugo dhan ummadda Soomaaliyeed xoreeyo waa la idin duceynay waa la idin garab taagnay intaas maxaan ku dhilay ummadda Soomaaliyeed garabkeeda haysatiin Soomaaliya oo dhan maanta qalbigan ku wada hayso waxaan ku leeyahay afar tuug oo meel isu keen imaatay annaga yay noo talin gacantooda ha nagala bixiyo ma doonayno doorasho dadban ما دونينا دورشة دبن ما دونينا odayaal lacag qaata ma doonayno waxoodii hore musuqmaasuqoodii ma doonayno waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan anagu wax doorano inaan anagu food garayno qofkaan rabno waxay hortaagan yihiin oo soo istaagayaan haddii qof iyo food
ay timaado in madaxda la dooranayo ogyiin madaxda hadda la joogta qofkay doontaba ha noqotee ama farmaajo ama khayra maqo in la dooranayo ogyiin that's why ay hortaagan yihiin in qof iyo cod la sameeyo musuq maasuqiyay rabaan waxay rabaan tuug inay meesha noo soo saaraan waxay rabaan gobolladii inay hor istaagaan qof gobolladii ma hadli karto qof video ma soo duubi karto qof in lama soo hadli karto waa la xiraa xabsiyaa la dhigaa ciddeedii dadkoodaa la dilaa waxaa hadli karaa waa inta muqdisho joogta iyo dadka dibadda jooga bes wax kaloo hadli kara male ummaddu waa la hayste intaas waxaan u qaylinayna la haystanimada inaan ka baxno farmaajiya khayre la haysta Soomaaliyeed naga bixiya odayaashan gacantooda naga bixiya tuugada gacantooda naga bixiya shisheeye gacantooda waa naga bixinayna ha nugu celinina haddaad ayaga nugu celisan ayaga nugu celinaa biri hadalka waan soo koobaa wax aan sii wadi karaa ma jirto odayaashan meesha iskugu yimid oo maxaan ku dhihi lahay dhahaya dowladdii ayaga amrayaan war adinkiin laydin amray aheed who hell are you maxaa tihiin maamul goboleedaata ku sinaw meeshaada jiqaa laydinkaga dhigay waxaa qaban karteen ma laha dowladdu meel kasta in ka soo xirtay we proud dowladdeena waana ku garab taagnayn waa fahamteen oo malaynaa wax aad qabatiina weyseen been intaad galmudug iskugu soo aruurteen halayda arka dowlad adduunka caalamka idinka arko shalayaa madal samayseen madashiya wax ku qaadi weyseen maantana waxay ku qaadayseen ma laha waa fahamteen oo malaynaa shacabka Soomaaliyeed horjoogaha u tiine nabad iyo nolol iyo dowladda Soomaaliya ku daba faylsan yihiin dowladda Soomaaliya ku daba faylsanna horjoogayaal waxay dowladdu idin soo goyso waa inaad qaadataan nad adinku intaad shir jaraa'id soo jeedin dowladda waxaan u jeedinaynaa dowladda hal sanad sheegay intay doontay ku darsanaysaa why not because waxaan rabnaa inaan gacantiina ka baxno because waxaan rabnaa inaan xorowno because waxaan rabnaa inaan gacanteena wax ku doorano odayaalaad noo soo aruurideen iyo lacag inaad qaadatiin oo maxaan ku dhilaa qofka rabtiin saartiin oo halkaas nagu dhaganaad 30 sanad halkaas nagu soo dhaganaydeen ilmaha ayaga ma doonayno inaad halkaas ku dhagtiin ma doonayno gacantiina inaan ka baxnaan doonaynaa dowladda Soomaaliyeed go'aankan ka culus qaadateen please waxaa maqlay ra'iisul wasaare oo dhahaya doorashadu waa inay inteeda ku dhacdaa haddii kale ee siyaasadda xaaladeeda oo imaan kartaa maxay tahay way ku darsan jireen ayagoo waxba noo qabanayna ku darsan jireen adinkoo wax noo qabanaysiin oo doorashadii la gaarayo oo sanduuqyadii la samaynayo oo meel walba maxaan ku dhiilaa wax laga samaynaa sanadaa sheegay ka badan oo ku darsan kartiin ummadda Soomaaliyeed ay idin ogol ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa inay soo hadashaa waa inay dowladooda garab istaagtaa waa inay u muujiyaan in dowladdu ay ku darsan karto intay rabto haddii ay naga bixinayso nimankan gacantooda dadweynaha Soomaaliyeed la hadlaaya soo garab istaaga dowladdiina tuugada maanta way maalintii la garab istaagi lahaa maanta gacan bila aadan hadina gacan tuuga aan ka bixi lahayn dowladdiina u muujiya inaad garab taagantiin u muujiya inaad rabtiin qof iyo cod waxa meelaha ka hadla oo ka qaylqaylina waa tuugo iyo maamul goboleed oo annaga magaceena ku qaraabanaya no we don't want that la hayste ma rabnayna ahaana no more intaasaan ku soo goyna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu